ninkan iyo noodkii waxay astaan u yihiin aniga laygama daba dhifto waxaan ka dhahan ciribteeda waxa ku dambeeyda ay astaan u tahay meesha ku dambeeyda noodkii astaan u ah oo raadkeedu lafeedu sii muuqda telefoon simkaar la geliyo waxa uu horeeyay noodkii san taariikhda ku haydo maantayna noodkii waa geeriyood telefoon simkaar la geliyo inta laga gudbay simkaar la'aan la maraa taasna waxaa heerkaas gaarsiiyey aniga lagama aqli badna lagama garasho badna iyo si kale loo dhigo naas muujiyo waxaa la sheegaa ninkan sawirkiisa ku muuqda inuu wiilow galay oo jaamacadda dhigaa iyo heerka koowaad inuu ka dhigay madaxa cilmi baarista kambanigaas tani weyn oo ku fadhiyey 300 bilyan taas markii laga soo tago ninka la yidhaahdo Qadaafi oo Liibiya hormariyey oo gaarsiiyey populationkeeda inuu lacag u qoro waxbarashada lacag la'aan caafimaadka lacag la'aan hodan ka dhigo haddana waxay aaday laygama daba dhigto nin kale oo hadda sawirkiisa la soo dhaafay wuxuu qaxootu ka yahay waddan Yurub wuxuu mar ka shaqeeyay oo agaasin ka ahaa mid ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ama ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xafiiskooda isagoo oo gobolka yimid wasaaradaas oo laga yaabo inay hore u yaaleen boqol codsiyo shaqo oo dad xirfad lahaa laakiin naas muujinuu ku helay wuxuuna uga faa'iidaystay inta lacag ka aruursado u tahriibo Yurub tago oo ka faalloodo yiraahdo meeshaas oo waxaan u tegey inuu tahriibkeedu ku hirgalo wuxuu qaatay baasaboor diblomaasi ama service turkiga tegey turkiga kasii tahriibay hadda Yurub uu joogaa haddana wuxuu u ololayaa kala go'a Soomaaliya waya marka haddii aad taliye aragto hadday ganacsigu ku jiro oo maamul bulshada guud ahaan si walba uu horumariyo waxay ku dambeeydaa shalay iyo guudar raadkiisa sii muuqda kacaankii Soomaaliya marcadaaskii ayay ku dambeeyey waxay dadku yidhaahdaan qabiil iyo midba maayna lagagama daba dhifto